إبراهيم أحمد حسن سنقل oo kamid ah duqeyda waaweyn ee gobolka Gabiley ka soo jeeda isla markaana si weyn looga yaqaan guud ahaanba Gabiley isla markaana ka tirsanaa golihii hore ee deegaanka degmada Gabiley ayaa waxaan wax ka weydiinay arrimaha ku saabsan dhacdooyinkii dhawaan ka dhacay magaalada Gabiley sidii ay ula dhaqmeen shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda iyo jawaabo uu ka bixinayo hadallo ka soo yeeray boqor Cismaan Maxamuud Buurmeel kusoo dhawow arwanaag news bismillaah raxmaan raxiim waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr maxay hayto wiigan dhacdooyin dhowr ah oo iska daba dhacay oo ka dhacay gobolka iyo rag badan oo wadanka ama hoggaan dhaqameedyo ah ama madax dhaqameedyo ah ama siyaasiyiin ah oo anigu kulleyba dee dhinacaan ka joogo aanan hadalladoodii jeclaysan iyo mawaaqifka ay iska taageen arrimaha dhacay oo kale matalan dilkii qorilugud ka dhacay wuxuu ahaa dil abaabulan oo laga shaqeeyey oo si cad oo loo saftay reernimo u dhacayba maxaa yeelay xero milatari baa lagu dilay labada nin ee saraakiisha ah xero milatari bartankeed ayaa lagu dilay waxa suurta galay in uu weliba gacan ku dhiiglihii dembigaa geystay baxsan sababta uu ku suurta galay waxa uu ku suurta galay waxa weeye safasho cad oo lala saftay oo haddii kale dee may dhacdeen oo may suurta gasheen inuu baxsadaa gacan ku dhiglo waana su-aasha taagan ee ummaddii reer Somaliland oo dhani laga qancin kari laayay ama hal la guul wadayo ama hal la iscarab tiro ama wax kasta hal lagu hadlo ma aha arrin shacbiga laga qancin karayo waa in sharciga la hor keenaa dadkii waxa sameeyay ayaanu leenahay hadaanu anagu nahay reer Gabiley ciidan ku gafayna iyo ciidan wax u dhinay anigu ma garanayo ciida dilka geysatay hal la hor keeno shacbiga waxaan leenahay hal la hor keeno shacbiga عدة قلادو أركيسانا هو أركتر عدة أنا أركيني ليه أركين وحيد هدان قفينا قيل كريبان سوالوش هدان قفينا قيل كريب مو بسوالوش أنا أقول حلوان هاي عدة وحاجة جيستي الله كان الشرعي إلهي هي قوانين توثق وطالعين بتقليدي هي أمني الله كان الله تاسواتها وحكون كهذيا ninka boqorka ah ee la yiraahdo waxa la muxuu ahaa buur madow la yiraahdo anigu buur cad iyo tu madow mid yahay de hadaan imika arka ma aqaan oo haduu imika halkan horteeda socdo garan maayo laakiin hadallada ka soo baxay ma aha hadalla fiican hadalla islaamnimo ana maaha kuwa tolnimo ana maaha kuwa dadnimo ana maaha kuwa dawladnimada ku fiican midna maaha sababtu waxay tahay waxaa dhacay ee uu og yahay iyo ragga la laayay saraakiishaadii ma garanaya anigu sababta uu ku difaacay reer Gabiley wuxuu bay yiraahdeen hal hor keeno wixii waxa sameeyay sharciga hadaladiis waxa kamid ah boqorka Jamaal Ali Xuseen hadalkiisu waa murashaxa madaxweynenimada ee xisbiga ucid وفتمة هي اسكو در أيو كاذب وحلا بقولك ما لا اسمه اللي جيسانين واسمه مقلين جمال فتمة هي اسكو در ما سمعينه عدة اسكو در كسمايسي هي عدة دين على صفتها الدفاع سوادي هاي جمال وحى وكل قضية خير إيه خرج اللايين يكون لقوم وياه خير هذا هم متفق مالان وعطين طونا بقول دور مدو نكلايلا وي waxaa jira gudoomiyaha gobolka Gabiley Mustafa Sheene ninka la yiraahdo gudoomiyaha gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Ciise Sheene iyo afayeenka madaxtooyada dhuxul inay dadka reer Gabiley aad u dhibsadeen hadalla ka soo yeeray sangal sideed u aragtaa adigu hadaladooda wallahi waxaan u arkaa إيه كلا صار لبضني وحنو أركا هرتا برا سابق هو كوجا في ومتى في سومال لأنه هو كوجا في شعب قريب بالله هو كوجا في وأنا كبابليك
ميديا هورتيسا كيري أنا أمرك بحيي إن الله يعيالك عروت الريق قبلي إن الله يو ورصاصته هوس لوجو بيقول أنا أمرك بحيي إن كيري وحلاها أنا قبيلي إن تشوكتي أنا تكون على طميد حق ملي توتالي وحنا أنا كنت لنا آير سكب حكومة أنا فكر كي لكن كتشوجا وصلها هديك هلا وشاب كاجا وحي كي ما تاني وحباه نقصي تاسوتها أفينك بيحتوي إذا سجاران ولا حساب تمينا وحنا يسكون هاي حافظ يسكون خير طلبانو لي طلي ما نساق ولا حساب تمتونا مش عليها الكائن والناف gabagabadii maxaad u soo jeedinaysaa qurbaha iyo reer Gabiley iyo dhammaan guud ahaan reer Gabiley ummadda reer Soomaaliland iyo shacbiga reer Gabiley iyo aqoon-yahankooda iyo qurba joogooda dhammaantoodba waxaan u soo jeedinayaa iyo inta jecel wanaaga iyo xaqa dhammaanteen waxa waajib nagu ah horta inaan xaqa u helno dambiilayaasha iyo dhagar qabayaashana waa in sharciga la hor keeno oo aan loo nixin ummadda reer